wargoormaynu sidan noqonna ee qof inta kaasa soo taago inoo yidhi raggu ha isguursado reer miyiga hore ku heesi jiray in geel didaydidii male doonya isma qaadaan dumar ma guursado sidee qof intuu inoo soo dhex taaga u yidhaahdaa xeer baan riixayaa wadayaa odhanaya dumarkuna ha isguursado ragguna ha isguursado abwaan yuusuf cabdille cismaan yuusuf shaacir oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay isla markaana wax laga xumaado uu ku tilmaamay hadal maalintii shalay ay ka soo yeedhay gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ee Soomaaliya Marwe Sacdiya shir gudoonka aqalka shacabka ee Soomaaliya ee xamar ku yaala ayaa war ka soo baxay argagaxle runtii argagaxle anagu dadka diinta iyo dhaqanka labadaaba ilaaliyaanu nahay shir gudoonkaas gabadh ka mid ah ayaan dhageystay muuqaal laga soo duubay iyo qoraal laga qoray waxay ku doodaysaa waxaan ay u bixiyeen jinsiga ama in de waxaynu xataa ku afka soo marin karanaba maaha in dadka ragga iyo dumarku guurkii aynu naqaano inta laga guuro iyagu wax isu doontaan wax caalamul galbeed laga keenay ama dhaqankan galbeedka iyo gaarada laga soo waariday marka gabadhaasi waxay leedahay dadkii haddii aadna ilaalin weydaan oo iyadoo marmarsiya ka dhiganaysa diintii iyo culimadii marmarsiya ka dhiganaysa waxay leedahay waa la wada gaaloobaya oo sidanaa la noqonaya oo aakhirkana waxay leedahay haddaan xeerkaa jinsiga meel marin waayo muqdisho way iskaga tegaya waa arrin runtii qof kastoo islaama argagax gelinaysa oo naxdin leh arrintaasaan doonayaa maanta inaan kelmad ka idhaahdo inantaa waxaan ku odhan lahaa horta ilaahay u soo noqo ummaddani waa ummad islaama ummad waxaasi ka suuro gelayaan maaha waxaan ku xusuusin lahaa gabadh iyana wasiir ahayd oo kaa horraysay oo weliba gabadha aqoon baan u lahaa inay xeerkan keentay baarlamaankii hore laakiin laga diiday waxaan aad u hambaliyaynayaa ugu bogaadinayaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee la odhan jiray muuday oo si fiican oo diiniya oo dadnimo leh uga hadlay arrintaa hore oo isu hortaagay isaga iyo aqalkiisii hore ee shacabkii hore ee baarlamaankii horeba ay u diideen waa ku bogaadinayaa runtii Soomaalida odhan jirtay meel aar ka kacay atoor fadhiisay gabadhan maanta hadashay waxaan leeyahay annagoo weliba ku nasteexaynayna arrintaasi suuro geli mayso dad islaama baanu nahay dad dhaqan leh baanu nahay dad waxaasi ka suuro gelayaan ma nihin adiguna ka noqo adiga iyo cidda mashruuca ku soo siisay midna u suurto geli mayso taa inantaa intaasaan leeyahay saddex qolana fariimaan u dirayaayoo mid waa madaxweynaha xasan sheekh dee madaxweyne magacaagana waa xasan sheekh dagaalna waa ku jirtaana weji islaamiya u dhigaysaan halkanna waxaanaa ka socda oo tii halkii ugu dambaysaya dee bal dib isugu noqdo oo arrimahan hoosu eega oo madaxweyne oo arrintaa mas-uuliyaddeedu aday ku hoos imanaysaa ee wax ka qabo golaha shacabka waxaan leeyahay gabadhu markay hadalkaa lahayd waxaan arkayay sacab iyo sawaxan meesha ka baxaya waxaa leeyahay nin baa beri lagu yidhi inantii heblaa kuu soo heestay wallaahi wuxuu yidhi inantaa ii heestay lama yaabaniye ragga u heehaa lahaa ayaan la yaabanahay buu yidhi golihiina shacabka waa wada qabtaan arrintan waa shir guddoonkiinnii waxaan samaynayaa iska daa idinkii odayaashii idin soo xulay baa dembigani ku dhacaya arrintaa baarlamaanow ama golaha shacabkow ceebtaa idin dultaalla iska dulqaada oo golihiidii ka horreeyey sidaa aan u soo sheegay wuu iska dulqaaday oo magac iyo sharaf buu kaga tegaye ceeb ha kaga tegina idinku qolada saddexaad aan la hadlayana waa Puntland oo inantani ka soo jeedo dee reer Puntlandow idinka lafdiinu arrintu way soo galaysaa iyo ceebteeda iyo fadeexadeedu way soo galaysaa had iyo jeer reer galbeedka ama gaalada ama marka dumarka xuquuqdooda meel baa lagaga dhacaya marka waxa la shubayo dhaqanka Soomaalida dumarku waa cidda ugu xuquuqda weyn leh laba qabiil waxay isku dileen gabadh baa jirta inta soo taariikhood baa dumarku leeyihiin inan sidaa loo eegay baa laba reer isugu rogmadaan Soomaalida waxaaba lagu maahmaaha nin waa maxay iyo waa inta gabadh ka soo hadhay
bal maamaada xaggaad ka dhaafi gabadhay markaad leedahay xuquuq baa iga maqan nin waa maxay baa layidhi gebigiisuba waa inta gabadh ka soo hadhay baa layidhi waa hambo gabadh ka soo hadhay dhaqanka soomaalida xuquuq dumar ka maqani ma jirtee qarribaad baa ka maqanoo nin reerkiisii iyo qoyskiisii rogmaday ayaa doonaya inuu inagana ina rogo waxaan ku talinayaa inantaana mar labaad dardaarankaygu waxa weeye waxaa ka noqo kuu suurtogeli mayso waxaan ceeb hayna kala tegi maysad haddaad kusii adkaysato adiga taasaan ku idhi madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweynow arrintaa wax ka qabo oo soo gacan geli shacabka xamarra waxaan leeyahay dee mashaakilaadkan idinku qarxaya arkaysaan waxaanubay ka bilaabmaya mashaakila soomaaliyaba shacab xamarba maaha soomaaliyaba dagaaladan dabada dheeraada iyo qaraxyadan iyo mashaakilaadkani waa waxaan cuqbadeedunba idinku qarxaya haddii wax laga qaban waayo intaas baan doonayaa maanta inaan halkaa ka idhaahdo somalilandna erey baan iyada odhanaya kooban khilaaf baa ka jira siyaasiya waxaan maqlayay gaalaa la sugaya islaamka waxaa la faray haddaa isqabataan kitaabka iyo sunnaha u noqda bal islaamku markuu idhahdo gaalaan sugaya khilaafkayga xalilaysa bal ka warran islaamnimadiisi maxay noqonaysaa taas dadweynahaan u dhaafayaa intaasaa hadalkaygu maanta ku kooban yahay waayo waxaan uga hadlayaa somalilan iyo soomaaliya iyo waxaa arrinkaygu maaha annagu caalamulislaam wixii ku soo kordhay mashkilada baanu ka hadlaynaa hanka iyagoo halkaasuu joogaa haddii xamar ay ka hirgasho halkanna iyadoo soconaysa noogu imanaysa waayo bad iyo buuritoonna inaguma kala gudbanaa marka halkeeda inaanu dagaalka ugu geyno wax kaga qabanno ayaa hadalkaygu daaran yahay oo aanaan sugin intay annaga noo imanayso hadalkaygu waa sidaa halkanna waxyaabaha ka jira halkanna waa ka dagaalamaynaa iyadana markeeda ayaanu haddii ilahay ka dhiga sidan oo kale uga hawlgelayna laakiin maanta hadalku wuxuu khuseeyaa arrinta xamar ka socota ee gabadhaasi soo bandhigtay iyo inta kale ee aamusane hoosta kala socota ee waa mashruuco waan ognaho reer galbeedkaa bixiyo dhaqaalaa lagu riixayaae hungurigu halkaa la galay waxaana ogaataan qof walba maalmo yar baad noolaanaysaa waxaana kaa dambaysaa camalkaaga mooye halkaan hiil casa camalkaaga mooye halkaan ceersi kala joogin nin walba qof walba godkaa yar baa kaa dambeeya iyo wixii adigu aad u shaqaysato fariinteeda kalena waxaan u dirayaa oo muhima culimada muqdisho ama guud ahaan soomaaliyaba dee arrintan waa arrin diiniya dee inay ka hadlaan oo inay gabadaan maaha inay ka gabadaan maaha waa inay ka hadlaan culimada aad u dhiiranee had iyo jeer aan bogaadiyaa waa culimada nairobi joogta sida sheekh umal oo kale culimada kale ee soomaaliyeedna waa inay arrinta ka hadlaan khaasatan kuwa muqdisho ee ay meeshooda ka dhacayso waxaa kaloo iyana aan fariinta kale u dirayaa dee waxgaradka sida madax dhaqameedka oo kale waa inay ka hadlaan iyana ganacsatada waa inay ka hadashaa war dadku waxaan laga dul leeyahay miyaanay dad islaama ahayn war goormaynu sida noqonna ee qof intuu halkaa isa soo taago inoo yidhi raggu ha isguursado reermigii horaa ku heesi jiray engeel didaydidii male doonya isma qaadaan dumar ma guursado reermigii horaa ku heesi jiray ee dadkeennii hore war miyaynaan ummad nool ahaynoo islaama sidee qof intuu inoo soo dhex taaga u yidhaahdaa xeer baan riixayaa wadayaa odhanaya dumarkuna ha isguursado ragguna ha isguursado waa halkii lalahaa nin baa amla isgeliyo o yidhi war goormaa raggii sidan u dhinta war fadhigaan ka kacno waxaan aan wax ka qabanno haddii kale adduunya iyo aakhiraba waa ku ciqaabaynaa annagu inta iyadii nidhiye war ciddii kale ee xilkan u saaran yahay hadla ibrahim jokar c b a t v hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa